ciidamada BI'da ee gobolada Highland iyo Sanaag ayaa waxay ka bilaabeen hawlgal lagu joojinayo dhuxusha iyo tahriibta magaalooyinka Ceelaa iyo Durduri gacan iyo Ulxeed magaalooyinkaas oo ku teesan xeebaha gobolada Highland iyo Sanaag ciidamada hawlgalkan fulinaya ayaa waxa hogaaminayay agaasimaha gobolada Highland iyo Sanaag ee ciidamada BI'da Maxamed Caydiid ciidamada ayaa intii hawlgalkani u socday waxa ay gubeen dhuxul ay gawaari u siday magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari sidoo kale ciidamada ayaa burburiyay goobo dadka laga tahriibin jiray sida uu TV-ga iyo raadiyaha dawladda Puntland uu sheegay agaasimaha ciidamada BI'da ee gobolada Highland iyo Sanaag gaashaan la sare Maxamed Caydiid oo aan kula kulmay magaalada Durduri shalay waxaanu talaabadii hore isku qaadnay in aanu gubno oo aanu fursad u helnay meeshii ay degi jireen qolada tahriibta laga raro dhammaan oo arki doontaan meesha cagtaan marina waana gubno wax ku harin meesii jiraan qofkii damaan ku qabanno iyo qofkii damaan ka shaqeeyana waxaan la adeegsan doonaa sharci la adeegsan doonaa tantaa ku sii xigta waxaan iyadana markii ugu horreysay gacan ku helnay bisha oo soddona saaka 9 subaxnimo waxa aan qabanay gaari ugu horreeyay oo dhuxul siday oo aan saaka dhulka dhignay dabna qabadsiinay hadda waxaan ka nimi xidid Ulxeed aan soo marnay waxaan rabnaa odayaashan la soo shirnay in aan socodka dambe oo ballanqaad ballaaran ciidan badan iyo baabuur anagu wadna aan hoogaha iyo wixii ka shaqeeya gacan soo dhigto soo qaban doono hawlaasna soo qabanay dhammaan golaha xukuumadda madaxweynaha Puntland Professor Cabdiweli gudoomiyaha ra'iisul baarlamaanka dhammaan golaha wasiirada dhammaan cidii khusayso waxaan ka codsanaynaa in uu wadanka ka jiro nabadgeel ballaaran nabadgeel xumo ballaaran in cid allaali cid ay khusayso qof walba Puntland xilu hayo qof walba shacaba xil ba ka saana wadanka dhibaato badan ba ka jirta ugu dambeyntina agaasimaha gobolada Highland iyo Sanaag ee ciidamada BI'da ayaa waxa dawladda ugu baaqay inay dhalinyarada u samayso goobo ay wax ku bartaan iyo sidoo kale shaqooyin sida kalluumaysiga oo kale si buu yiri dhalinyaradu ay isaga dayso tahriibta iyo shidista dhuxusha ciyaalka yaro oo jirada ubaxa kacanka wadanka maanta meel wax ku bartaan haba yaraatee male oo wax laga naxo aad looga naxo qof walba oo Puntland waxa weey haduu arko wax ka naxaya waxaan ka codsanaynaa golaha xukuumadda sida ugu dhaqsaha badan inay guddi u soo dirto wasaaradaha khuseeya lagu khasbo sidii ay wax uga qaban lahayd wadanka ma jiro wadanku waa baaban waa go'aan waxa weey dadka cabasho badan bay muujiyeen cabashada muujiyeen in loo yimaado loo arko wixii laga qaban karana wax laga qabto wax waajib ku ah xukuumadda Puntland anigoo agaasimaha BI'da gobolka Sanaag Highland hawsha muddo loo bilan ku jirnay deegaanka waa la shirnay dadku waa dad fiican waa dad diyaar dawladda wax la qabtaan waa dad diyaar waa in loo yimaado oo gacan la siiyo haddii noqoto xag waxbarasho xag caafimaad xag wacyigelin dooniyada shaqo loo sameeyo deegaanka dadku waxay in loo sameeyo kalluumaysato iyo dadku wuxuu ku mashquulaan xeebaha loo dhigo dooniyo yar iyo meelo kalluun wax loo sameeyo oo amal loo sameeyo sidoo kale waxaan mahad gaar u celinayaa TV-ga qaranka Puntland oo aanu kula kulannay maanta nasiib u helnay inaan kula kulanno Durduri oo isaguna si heegan iyo hagar la'aana arrinkan uga qayb qaatay Xasan Ismaan Aadan Xasan dhageyre TV-ga iyo raadiyaha dawladda Puntland Durduri